ayuu soo diray kadib waa la diiday taariikhda inaad haysaan u malaynaya waxaana diiday guud ahaan xaaji ibraahim nuur waxaa diiday xaaji xersi muude oo ahaa ganacsatadii ugu waaweynaa ninkii gaari keenay soomaaliyaba dhaqaaqa keenay weeyaan dadku cawaan bay ahaayeen baabuur xitaa may wadan jirin gaari dhaqaaqa ninkii keenay wuu ahaa guud ahaana markaa waxaa la yidhaha urur bay noqdeen ururka waxaa la oran jiray waxaa la yidhahaa Somali Trade Union waxaa ka mid noqday ururka oo ka mid ahaa Cawaale Rashiid ninka calanka astaanta keenoo dawaarla ahaa kana soo jeeda deegaanada Puntland sababta la sheegay markaa dadkan loo dabar cararaya loo leeyahay waxa weeyaan qadiyad meel adag ayay haystaan marka waxaan leeyahay ree awdalow qof kasta maanta ana ka qabanaya maanta waa la xeeranaya walaalayaal qof kasta xiyaala socda meesha qof kasta ana ka qabanaya dabayl baa socda saan ku sheegay dabayshaasi waa dabayl xagaa waxa weeyaan ii soo sheeg waxa weeyaan wax hore loo yiri maartay lixda jiilaalka naxday maartay ii soo sheeg guga naxday jiilaal ugu dambeeyay jiilaalkii baa ku soo socda marka waxa weey political crisis baa soo socda intaas baan iyada kaga hadhaya مختار ها ودك ووري مختار ها ومختار way xaalay مختار waxaan ku weydiinayaa dadku waxay soo qorayaan ama committee soo qorayaan in hadal haan ma buuxsho ama dadkii dhalinyartii calanka buluuga ana ka qabanaya muna ka baxo ana ka qabanaya ku arkaya dadkii calanka buluuga ma dheera la geeyay dhalinyartii hablihii ma dheera la geeyay dhul bahantiya gadabuursuun bay haayeen wax isaaqa kuma jiraan dhalinyartii wax ka hadlaya ma jirto oo soo hadal qaaday ma jirto calankii buluugana waa lagu xidhay iyagoo isku sawiray ama iyagoo xusay maalintii 26 Juun Soomaaliland waxay noqotay meel calanka buluuga laga neceb yahay soo ma gardarna ciyaal ku xidhanaya calanka buluuga magaalada dhexdeeda soo yow ma gardarna qofka waxa weeye waxa jirta walaal dadku ma aha inaan sidii cawaanta u hadalno waxa weeye xitaa laanta la sheegay human rights waxa la yiraahdaa jira warqofku xaq buu leeyahay wax alla wuxuu doono taageeri kara calanku kala qaadan kara intaha buluuga weeyaan kaasi waxa la yiraahdaa marti treatment baa ingiriiska lagu yiraahdo waa caburin iyo waxa weeyaan isoo sheeg hadii la yiraahdo caburinta ay timaadana waxa la yiri maartay isoo sheegan xaq hadii afka la qabto feeruhu ka dilaaca war iyaguba shalay toole maartay waxay ka cabanayeen buuy maanta iyaguna wadan taas waxa markaa soo socda systemka maanta meeshan ka jira walaal waxa weeyaan waa jabhad ma aha dawlad xitaa waa iyaga ugu liita dad cidda ugu liidata waa iyaga labada dhinacba dadka ka degan hadii ay si fiican u dhaqmi waayaan social integration ay sameyn waayaan isdhaxgalka iyo political reconciliation ay meesha ka socon weydo waxa imanaysa dad waxa weeyaan awdal state maxweyne our land waa awdal land waxaanu ka tagaynaa calankayga ka tagaynaa cidaan ka baryaynaa ma jirto muusana waan idin sheegayaa anigu qof yar oo fudud oo iska hadlaya meeyi waxaan ahay ninkii ka taagay magaalada Hargeysa Xasan Yoonis Abane ninkii ka saaray weeyaan isagoo ooyaya oo maartay inacigaal oo yarkii ka saaray baan ahaa waxaan leenahay marka ma soconaysa taasi shalay wuxuu diiday cid ogolaanaysa ma jirto anaguna maanta ogolaan mayno waxa weeyaan gobolada awdalna waxa weey movementigooga iyo dhaqdhaqaaqooga way socdaan maantana waxa weeyaan meeshaasi waxa ka soo socda kacdood iyo mahiigaan iyo isbedel baa ka soo socda isbedelka kacdoodka gobolada waxa la yiraahdo waqooyi baa ka soo socda ama ku hadlaya afka markaasi gobolada waqooyi waxaan leeyahay war isbedelkaasi sugo waxba degdegsanina insha Allah waxa la yiri la qowracan geeday ku gabarta ma weeyo maartay soo shay maartay waa qowracantay rafashadii bay ku jiraan waxa weeye salam rafashadii meeshii intii ugu dambeysay ku jiraan waxa weeyaan diyaaradda taas u saaran iyaga buhoolana waxa saaran waxa aragtay booramana waxa maartay dilay iyo booramana waxa saaran dhibaatooyinkii ay ka geysteen iyo taalooyin baanu ka taageynaa meesha wax soconaya jana sayrka ka socda ma aha loo kaliya ma marka waxani markuu waxa weeyaan waxan isi soo gaaro walaal ummadu way kacayaan laakiin dadka reer awdal waxa laga rabaa in la yiraahdo maartay dadka maartay u hadlaya ee qurbaha jooga ama dalkiiba jooga doonaya damiirkooga waxa la doonaya in iyaga naftirkoogu kacaan oo dareenkooga u kacaan sax anu waxaan aaminsanahay dadka jeelka ku jira ma xidna macnaha markaan saalay waa maxay jeel waxa weeyaan waxa la yiraahdo maartay luqadda qalaad lagu yiraahdo ayaa jirta waxa la yiraahdaa mars sacrifice the never surrender wala sacrifice laakiin the never surrender isma dhiibo kuwan isma dhiiban aqli ahaan isma dhiiban laakiin kuwa banaanka jooga ee odayada marka qaar badan oo meelaha ka cararaya Soomaaliland calankooda wadana waan ku arkaa kuwa badan oo xitaa aqoon-yahanina oo ka hadlay Soomaaliland maxaa loo diidan yahay oo naway jiraan fara badan sidii waxa kamid ah ninkii la oran jiray Maxamed Ooyaye Maxamed Saciid imika ka hor baan meel ku nimid xilligii mar ay hadlayeen dhalinyaradu ay soo baxeen kacdoodka gobolada awdal waxaan idhi systemkan aad wax ku wadaan ma wanaagsana waxa la doonayo igu yiri
waxa jira waxa la yiraahdo mobilization annagoo halkayga joognaan doonayna waraxaas wax soconaya maahe haddii qadiyadda Somaliland aad aaminsan tahay meel socon maysid halkaaga iska fadhi marka waxa weeye maantana waad arkaysaa ooyinta un baa jirta marka waxa weeye nin maartay danleyda dadka danleyda siyaasiyiinta danleyda gudaha ku jira kama hadlayo dadka waxaan la hadlayaa damiirkooga ay nool yahay ee guud ahaanba maartay isoo sheeg deegaanka tigan dhalinyarada ah ee maartay isoo sheeg soo socda waxa la yidhi odayada warkooga iska daa iyagoo calceed casaro sii socota laakiin cidda la doonaya in ay maanta waxa la toosnin la u galgasha tolna uu erkeeya cidda la doonaya inay wax hagaajistaan oo wax ka shaqeeyaan waa laf dhabarta bulsho laf dhabarteedu waa dhalinyaradii baa ka gaabiyay banaan u aaminsana annagu intaan dadaalayna waan dadaalaynaa waxa weeyaan isoo sheega meelo badan waxa weey lagana joojin maayo human rights kana waanu ka dacweyna qoraalo badan baa la sameeyay waxa weeyaan isoo sheeg adal maartay isoo sheegana bot advocate-na waxa weeyaan iyaga naftarkooda dhinac bay ka dadaalayaan oo maartay isoo sheeg Canada annaga Europeanka gudaheega dhinac baan ka dadaalaynaa oo maartay dhinacayagan baan ka dadaalaynaa shalay ugu dambeysay baan xafiiska maartay human rights ka yimid waxa weeyaan waraaqa badanna waanu qornay midda kale arinta taarana waxa weeyaan territorialkani waxa maamula under government Somalian government weeyaan waa dhulka Soomaaliya ay maamulaan dawladda federaalka Soomaaliya maamusha waad arkaysaa wasiirka maartay warfaafinta oo ka soo jeeda deegaankan hadalku ku hadlay waad arkaysay xildhibaanada gobolada ka soo jeedana wariyo caaw ka sayay human rights kana waa lagu buushkareynayaa annagu haddaanu nahay guud ahaan maartay ururka maartay gobolada waqooyi midowga gobolada waqooyi ka shaqeynayana waxa weeye arintaasi waanu buushkareynaynaa runtiina waxay noqon doontaa waxayna keenaysaa taasi imikaba dhaqaalihii la siinayay baa laga joojiyey muuse wuxuu ugu rafanayaa 60 maartay soo sheeg milyan oo loogu talagalay waayo waxa weeye accountability baa la sameyn waayay wax badan oo la cunay waa laga joojiyay waxaan kale oo u tirnay caqabadahan imika socday iyo dilalkana waa ku sii biirayaan meesha waxay noqon doontaa in la maartay soo sheeg la isdiirto ayaa soo socota iyaga naftarkooda isdiiran doona marka wax la cunaa la waayo waxa weeyaan soo sheega dadku marka intaasan iyada maartay ku gabagabeynaya waxaan leeyahay guula iman doona insha Allah dadku yeenan maartay niyad jabin soo sheeg waxaan u sheegayaa walaalayaal war reesor iyo reesanaag iyo maartay soo sheeg guud ahaan bas SSC dhinacayga iyaguna wax ka wadaan waxa weeyaan jabhadahooguna way taagan yihiin oo waxa weeyaan Faisal Fararuq habeen walbaan wada hadalnaa waa taagan yihiin laakiin raawdalow idinku is cadeeya ciidamadana ku jirta ninka raawdalay askariya markay waxaan bilaabmaan kacdoodiya socda dagaalana waa la gali doonaa ninka lagu arko isagoo u dagaalamaya ee la qabto waa la dilayaa imikaba ku talagal ninka reesol iyo sanaag lagu arko waa la dilayaa kan lagu arko maartay gobolka awdal lagu arkana waa la dilayaa hadhow toole Somaliland wax la yiraahdo ma jiraan adeer qaran waxa weeye maartay soo sheeg qoysland qabiil qaran noqon maayo qarannimo ma taas ma noqdo lama sheegin nation baa wax noqda laakiin qabiil wax ma noqdo halkayga uba taagnaanaysa ooyinta uba ku jirayaan waxa weeye crocodile tayrka uba ku jirayaan adduunyanaha uba ka dhaxqaylin doona waxa la yiraahdaa maartay ilmada iyo xaaska waana la guumaystay waana la dilay Soomaaliya la dishay war waxa ku heli meysaan xitaa waxa weeyaan ixtiraafkii la sheegayay ee uu soo dhow yahay sida ku iman maayo xitaa marka waxa weeyaan waxa kala fogaanshaha ummadda Soomaaliyeed baa kala fogeynaya dadka wada degan baa dab lagu kala shidaya arintaasina cidda ka dambaysa ee shacabka u tumaysa waxa weeye guud ahaan u horeeya nimankii waxa weeyaan soo sheeg baxay ee Muuse bixi kamid yahay ee SNM ay kamid haraaga SNM meesha joogay kamid yihiin waxa weeyaan shacabka iyo inta kale shacabka u tumaya iyaguna ma oranayaan reer ma oranayo waxaan leeyahay war systemkan idinkuba dhibaato idinku haya faa'iido kuma maalin walba waad ka qayb hargeysa laga dhaxqaylaya wadalka saayo gabadhii calanka soo qaaday in buuba qabay wax lagu sameeyay waad ogid waxa weeye ninkii yaraa magaalada ka dhawaaqi ka cararay farxada halkaas iyaga dhaxdooda ayuu dulmigu ka jira marka waxa weeyaan dulmigu hadduu maartay isbiirsadana haddii afka laga qabto maartay soo sheegana xaq afka la qabto waxa weeyaan soo sheeg Faaruq ka dilacay Faaruq soo dilacay okay mukhtaar aad baad u maasantahay sababta mukhtaar waa wariyahayga weeyaan anigu markasta waan qadarinaya sharaf iyo ku salaamaya halka ka wad waxa weeye waka adiguna waxaan aad iyo aad kugu boorinayaa wardaniyada iyo calanka Soomaaliyeed mar walba ka hadal laakiin arrimaha kale aad ka hadlaysay iska wadaniyada iyo calanka Soomaaliyeed ummadda waxay la doonayaa inaad u sheegto calanka Soomaaliyeed lama hore waa cuska jiila kaas aan u leenahay wax kale ma lihi waaye baad maasantahay mukhtaar wariyahayga weeyaan anigu markasta waan qadarinaya sharaf iyo qiimo igu leeyahay sababtoo ah meesha maanta taaganahay ninkay soo gaarsiiyay
aan la soo jaan qaaday inta badan waxaan ka wada shaqayn jirnay tv-ga Empire tv-ga Empire meel wanaagsan baan soo gaarsiinay horta inkastoo wax fiicanna adu dhaqaalo fiican naga soo galay laakiin wax fiicanna meel fiicanna waan soo gaarsiinay walaalayaal marka waxaan leeyahay hore u socon leeyahay tv-ga Empire oo wariye ugu qaalisan ee ka hadla daawada warar xasaasiyiin u soo jeediya oo aad u bogaysiin walaalayaal haddaad doonaysa inaad siyaasadda iyo beretid waxyaabaha saa loo kala dhigdhigayo waa macallinkayga ka faa'iidaysa walaalayaal hallo salaamu calaykum soo dhowow muna وعليكم السلام سلطان وكل سلام يا وكان قاعد سودو كلي وريها مختار باكو جيري سودو ها إن بدن بس ما شاء الله ده سفي عبو هالله لكن ده كلمة سي ولا سي ده كله هو ده هالله ما قرأ هو قالوا ندي سقوا وريها يجيو سقوا مع دو ساعات قاتوان دقيسني وكسر وشرح ده ما قرأ من سودو كلي با قبل وطنية تاي أنت بدنا awdal ama inta badan jecel gabadha bulshada waad sidoo aragta magaaladaadii waxa ka dhacay dilal ba ka dhacay xaaladuna aad buu sii xumaanaysa magaalada Boorama garoon male dekadna male laakiin jaamacadda la doonaya in ay ka xidhaan beeshay door ama ay iridaas ku dhuftaan sidoo arkaysa cadaawadan isaaqiga bulshada goormay bilaabantay maxay isku haysan dadkani oo oran kartaa wallahi walaalo horta dhow jeer horena waan ka hadlay waxaan u maleynayaa last year baa isku kala dambeysay سلطان أنتو سنة كان يهمنا وده هاللين بري هراء كل شيء واحد السعودة ماشان كالسعودة مرة هراء بقول شربان شيء ما قرأ وان قرطي ده هاي وحاسي ماشا وحاسي وحاسي وحو النقضي إمي كدتك ولا اللينية أو لو قد لي دتك كي مدبريقا أنت هنا إمو بابا يدي شيء بقى أنت هنا إمو بابا كهلا وحنا اللي قد بورسيجا إيه وكرمان كرم وما وحيتري معي سأل عليه هسي وما حيتري هسي ويقولوا صفي don't worry أنا فوق حسستنا يا anyway waxay tiri qofka bini'aadamka horta inuu xasuustaa fiican wax kasta uu garanayo maxaa ka horeeya maxaad Somaliland ku haysataa Somaliland walaalo waxa la yiraahdo waa istaaqlan weeyaan runta marka doonaysiin gada bursiguna taa iskuma sheego runta iskuma sheego been buu isku sheekeeyaa ma garanaysaa waan gartay hadda ka hor waxa la idinku haystay oo ay ahayd dhaqaalaha la idinkala dagaalamayay waxa la idin diiday inaad airportkiina furataan waxa la idin diiday muxuu hayay inaad dekad yeelataan waxa soo weydaaratay in maanta saylac la yiraahdo istaaqba iskale beritoona waxa ku imanaysa la wadaado gada bursi boormana waxa iskale istaaq la wadaado yaa soo socota ma fahmaysaa waan gartay waxa dadka loo dilay ardayda loo leynay waa in dadka la bajiyaa la rabaa hadda ka hor waxa yiri odayga la yiraahdo Faysal Cali Waraaba wuxuu yiri magaalada Boorama waa in maxay tahay majartanka lagu laayay ardayda majartanka waad ma xasuusataan baan u malaynaya waan soo bandhignay fiidiyoogii uu ku hadlay ha si wacan waxa weeyaan walaalo dadkani adigana waxay ku tusayaan inay maadartay Somaliland isla dadka ujeedo gaaray leeyihiin waxay doonayeen marka horeba khiyaana ku jirtay saaqa waxa ku jirtay cadaawad waligeedba aan dhamaanin oo gada bursigu qabto gada bursigu cadaawada uma qaba iyaga u qaba okay ma isleedahay mar hadday nimanka isaaq aqoonsigii waayeen qabiilada ku soo jeesteen mas'aladda sababtoo aqoonsigii baa dheeraaday waxba lagu kala mashquul lahaa ma isleedahay aqoonsigii marka la waayay waxa la doonayaa qabiiladii in ama la iska horgeeno dhaqaale la wada xidha si dadku iskugu dhacaan oo kale horta imka barnaamijkan awdal ka bilowday maadaama xisbigii kulmiye ku guul daraystay Boorama oo uu wadani qaatay dadkii oo dhan iyaga rabshadan wada ma fahmaysaa rabshadan imka bilaabantay waa rabshad kulmiye weeyaan ma fahmaysaa waan gartay wuxuu rabaa dadka inuu isku diru rabaayo reer Boorama kacaan oo ay maadartay dagaalamaan wuxuu saylac u bixiyay wuxuu maadartay waxa soo dhawaaqas wuxuu dadka u leeyahay askariga laftigiisa dilay ina ka yaraan waxaan aaminsanahay in lacag la soo siiyay oo ina ka yar dil leeyay si loo yiraahdo ma jeertaankii caruurtoodii baa la leeyahay ma fahmaysaa hay soo kuma xumaateen ma jeertaanka iminka nimanka bariga degan gadabuursi ama isaaq aduun noqon lahaa soo kuma xumaateen in dhexda u galaan nimanka ma jeertaanku dadka dhexda u galaan ninkan waxa loogu soo dhiibay qoriga waxa loogu soo dhiibay oo loo leeyahay in kan kama uu dilay si bareer uu dilay moobil laguma dilo qof binaadam oo moobilkayga soo iloodan soo qaadanaya oo waliba ardaya oo waliba inaan yara oo waliba wax dambi ka gelin oo qori sidanin waan canaan kartaa xitaa qori ku dhufan waxa la kartaa kuma dhiibay adigaaba ka xog badan adaba meesha haystay leeyahay waad iska ceelin kartaa canug waxa loo dilayaan ku yiri ninkan ma jeerteen ninkan waa reer la yiraahdo weeyaan wax la yiraahdo gayle something like that weeyaan fahmaysaa
soo waxaa laga yaabaa isaga laftigiisa lacag baa la soo siiyey inuu mission ka sameeyo ma fahmaysaa waan gartay haddii nin isaaqi uu samayn lahaa ama ninka dabursi samayn lahaa waa la ogyahay sheekadu inay kasii xumaan lahayd aan kuleeyahay waa taahaa taasaan kuleeyahay majeerteenku waa niman bariga dega gadabursi baa ku dhex nool isaaq baa ku dhex nool haddii ninkaasi uu maanta uu sanaag uu ka soo jeedin uu dhul wasangeliya uu ilaahay ka dhigay ummaddii way seexatay laakiin hadduu isaaq ahaan lahaa ma gadabursi saw xaalad ma xumaateen walaal mishinka waa laga soo shaqeeyey mishinkan waa laga soo shaqeeyey markii hore waxaynu ogeyn in calanka Soomaaliya lagu gubay Boorama ayaynu wada ogeyn kaas laftigiisu mishinka loo ahaa oo la rabay in dadka reer awdal dadka Soomaaliya laga dilo oo la yiraahdo wataasi magaalada la haydeen Boorama waa Soomaali wata calankii Soomaaliya lagu gubay hadda waxaan oo waa film weeyaan filimka waa inuu fahmo gadabursi waxa laga rabaa waa filimka fahan isaaq filim buu kula wadaa filimka la jil akteer buu ka yaadaguna waxaad ka noqotaa muxuu hayay dilaa ka noqo ma fahmaysaa waan gartay marka waxa loo baahan yahay walaal in la fahmo dadkan markaa waxaan ku war siyaasadda barta gadabursow siyaasadda wax lagu dilaa dadku maanta siyaasad bay wax ku dilayaan war kuguma dilayaan okay jaamacaddii hadda wiil majeerteena lagu dilay maanta aas qaran bay u sameeyeen gadabursigu si nasabnimo aad baan u salaamaynaa si sharaf leh aaska u aasteen okay jaamacaddii weliba laguma dilin nin gadabursiya nin isaaq laguma dilin waxaa lagu dilay nin daarooda saw lama odhanayo dhaqaalihii ayaa gadabursi lagala dagaalamaya gadabursiguna weli waxa u haystaa nimanka isaaq inay yihiin niman iyaga u wanaagsan oo gadabursiga laftigiisa kala jabsan oo lama odhan karo oo iyaga laftigooda qaarna ay taageersan yihiin qaarna ay kasoo horjeedaan walaal gadabursi xaqiiqda wuu og yahay waxba ma kala jabsana inta mushaharka ka qaadata weeyaan inta afka ku qabanaysa intaana waa in iyaga laga ninka isaaq intaanad gaadhin waa inaad dishaa kaaga waa inaad dishaa uskaga ah ee lacagta kasoo qaadanaya 4 shilin ee odaygu kugu jaajuuso ee wasaqdu soo qaato waa inaad ka goysaa waa inaad isaga dishaa weeyaan markaad isaga dishid ayay wax hagaagayaan laakiin intuu isagu kusoo dhuqdhuqlay waa kan durtaba waxaan arkay imaka yarkayga horreeyay muxuu ahaa mukhtaar saleebaan cawar iyo waxaa kusoo meeraysan saleebaan cawar walaala jaamacadan buu isagu mas-uul ka yahay waa nin warqad buu ka akhrinayay wixii loo soo dhiibay buu akhrinayay wax maskaxdiisa xitaa uu ka keenay muu akhriyaynin inagu inaan isku meeraysano maaha gudaheedna isku soo lexleexanee waar waa layna wada dilayaa gadabursi waxaa loogu talagalay in dhulka laga qaato meeshaad meel yaro sokaad gadabursi ka wada eegaysaa meel fog buu isaaqdi kala dagaalamaya oo wallaahi wa billaahi wa tallaahi haddaad garanaysaan iyo haddaydan garanayn okay gadabursi badan horta meesha aad buu daawadaan saa qori ku jira iyo nimanka daarood iyo hawiyahaas midaan ku weydiinayaa iminka hawiye iyo daarood yaa jaamacadihii Boorama lagu soo yaacaya Hargeysa iyo Burco lama tago magaalooyinka Hargeysa iyo Burco jaamacado tayala male tan Boorama haddii ay ku sii socdaan dilalku ama dilkan majeerteenka oo cawaaqib xumo ma ku soo kordhin kartaa jaamacadda oo jaamacadda ma u keeni kartaa wax dhaliila walaal horta ilaahay baa horta ummadda arsaaqada ilaahay baa ummadda siiya gadabursinaydoon jaamacaddan jirin buu una noolaan doonaa ma fahmaysaa laakiin waa run oo tayada ayay ka sarreysaa tan awdal way ka wada sarreysaa xitaa kuwan ay ku faanayaane ay leeyihiin jaamacadaha ka dhisan muxuu haaye dhulalka kale nimanka ka wada macallimiintii waa niman gadabursiya ilaahay baa gadabursi siiyey tacliinta ma garanaysaa waan gartay soo markaasi waxaan ku leeyahay way fiican tahay inay dadku wax fahmaan walaalayaal 210 baatiin qof kasta gaarsiiyay qabiilka isaaq iyo gadabursi iyo dhulbahanta saddexda qabiil ee aadka iskugu nacab waliba hadana kala bixila muna koleyba qof siyaasadda aad u dhooxana waa tahay qof inta badanna siyaasadda ku dhex jira soo adigu hadda ma is leedahay dhalinyar baa lagu xidhay calanka buluuga magaaladii Boorama calanka buluuga lagu gubay kii Soomaaliland baa ka dambeeyay lagu gubay xaaladani maxay ku dambeynaysaa baad leedahay kool kula way badan yihiin xaaladda maxay ku dambeynaysaa baad leedahay wala xaaladdan walaal ma fiicnaanayso saan u arko gadabursi laakiin waxa laga rabaa inuu ishabeeyo inuu isabaabulo waxaan wax ka waaweyn wuxuu baroorta orgiga gadabursi ma samaysan karaan maamul goboleed ma samaysan karaan way samaysan karaan walaalo dadkan hadday isku tashadaan wax way qabsan karaan waa dad tacliin leh waa dad adduunka maad aragtay kule dad isbaxa weeyaan waa dad adduunka taariikh kule ma fahmaysaa dad imaka bilaabaya maaha waxbarasho iyo
maamulka si wax loo maamulo bilaabaya maaha waa dad yaqaano weeye maamulka fahmaysaa waa dad u daacada xitaa meeshay ka shaqeeya waad arkaysaa beyle waa nin ka soo jeeda gobolka awdal wuxuu u yahay waa wasiirka muxuu hayay maaliyadda Soomaaliya sida uu wax u kala horeeyo waad arkaysaa qofka bursiye gobolkiisa markuu ka shaqeynayana sidaa iyo si ka badan buu daacad u ahaan doonaa waxaan leeyahay gadabursi oo ku celcelinaya ilmaadeerayaalow waa la idinku talagalay in la idin jaahwareeriyo gobolkana la idinka qaato ما دركتي ليدي دي دقاله ساق ما بلا دول با marka leedahay ku soo celinaysid dhul bay qaadanayeen saaq ma bala dhul ba war waxa la doonaya dadkan waxa jirtay waqti uu cigaal tagay muxuu haye walaalo bari buu tagay meesha la yiraahdo Mareykanka intuu odaygan noolaa waxa silsiladan waxa sii xiray odayga cigaal la oran jiray tii uu bayna ku socdaan waxaan oo dhan wixii bay ku socdaan ma fahmaysaa waan gartay wuxuu soo xiray waxa lagu yiri intuu tagay buu iyo qoonsada waxa lagu yiri gobolka kaliya kuma noolid dad kale ayaa kugula nool wuxuu yiri dadka kale waa minority si minority loo rumeeyo dhulka laga qaadanay ma fahmaysaa halka laga dilay sultaan minority loo cadeeyo adduunka dadka waxay ka dhaadhiciyeen inaad minority tihiin dadka dhul bahantii warsan galibo iyagu majority yihiin ma fahmaysaa waan gartay soo marka dagaalka ay ku jiraan waxa weeyaan laba face buu leeyahay dhinac waxay rabaan in adiga ka haystaan oo adduunka tusaan inaad mid la wada yahay ma fahmaysaa waan gartay dhinacna hoostay kaa dilayaan oo dhaqaalahay kala dagaalamay inaad soo kacdido isaga la tartantid buu diidan yahay ninkaaga qofka saara ka qabanaya okay muna waan gartay laakiin waxaan ku weydiinayaa su'aasha ugu dambaysa ku weydiinaya dad badan oo ku daawanayaan in badan komitiyo wanaagsan ku soo qoray muna waa geesiye dad badan markay komitiyo ku garanaya bala komitiyo wanaagsan ku soo qoray aad baad maasantii muna kuleyba أنا نداوني واحد تقري سين مرة وين السلام يسا. واد ما تنتي ولا أنا أقول داو صدق شيء بقولنا يا نادر أنا أقول هذا كبوسي بدينين أنا احترام يدك كلا لين كسوقية ولا لو معانا وكنت مركز دوني سب وحويا سياسة ماشان كسرتها ما على كبلوجا إذا على كذا يا رحمة قعدت كل حريهم مقدش لا تجاني وحرام إذا وحنا ما تراهضه وحيلا تجان شجيجا إذا وحنا تراهضه شبوت بيلا جرار إذا وحنا تراهضه أدون كلهم بالحسودان يجوا واحد يدين أنا كيري أفر سو قعدت في عالم بكل أنا كيري وبدلان ما فاهم يسا ما يك سومالا بكحنا ما سومالا بكحنا ها سومالا عارف سومالا بكحنا لما صور بالسوسي دائما بتلان بكحنا مركا وقص ليو مركا كله عدو تاجي أنا كسومالا بكحنا لما صور با كان أنا أركي كعنت ها عالم كميدك بتلان وحكحنا صور كانوا قص ليا كيري ولا عضينا يو صور كانوا واحد جلس تاجي يا سومالا إحنا عالم سومالا وردقال واحد سعودة حيتان كان موسى أنتو تجي حمر بور ربع حمر سو مدرك إنه إلى حمر دجن أديكوا كل ما دجال ما يو وأوجي حمر هذه هجاكتو إن الجو ده جوري أوجي إلا يفرماش أيولك كل شيء أقول دجال ما يا فهمي من كاني مج تذكر ما دوريان كذا بورسين وما راح ساقا وكذا بورسو تشهد عند الله يعني تشهد أنت الجريان اللي يدي كل حيمان أنت محبط ما راح اللي يتكلم شيء متكفر فرديا سيد اللي يدي سوق هذا 1991 كي إن الله يدي سوق هذا مرة بعد وارهوب سمايستا والعكس سمايستا وروح كل حدود توبي يمالك استبى الله يا شحريد ولي عن فرت سود ويست عن فرت اللفت جيدا كسوقاته هوب أول حريد لسمايا دلي وأنا السلام يا نادر أوكي وان كقاضي أنا منا وقبرت سياسة تقعنا سودو السلام عليكم سودو وراد باكو سلام يا نادر مقرنس قبيل كاجا سودو ورسجلي وعمر أنا مقرنس صح وسنجلي كيس بات قشرة سودو وسنجلي ومضن آيات ما شرتنك حركة إنك ويل كوجا أتكدي شين هدينا كدي لهيان ساقي قد بورسي حارض ويسيك عسنا لهي وسنجلي عسكري إنك صوت هذا صاد مقشينا نو وسنجلي أتوضل صوت حارض كله يبقى نكينا ولا محدين أسكينا وداعي سيدارتا عسكري قد لي إيش وما لا كترسان أذكر واحد لايد مالنا هرس له اللي إني مركزتنا waxaan kaaga mahad celinayaa sida uu soo qaraacday ama sida aad ugu xidhantahay barnaamijkan TV ka raysuteen mar horena waxaad lahayd wasangal uu ka baxay Soomaaliland haddana iyagii baa askara dhanna way kaga jiraan xagee wax ka sii yihiin inaad horta ninkan SLM waxa weeye anaga horta nin SLM aha anaga nimanka SLM nooga jira kuwa al-shabaab ku kale noola mid yihiin kuwa al-shabaab ku jira oo al-shabaab dadka laaya ayay horta noola mid yihiin ma garatay waxa anaga nabadgelana maaha meeshan anaga waxa weeye ma aaminsanin nin shacabtu SLM u shaqeynaya in maanta anaga nool ku shaabaday horta aad baa wax maxay hadduu anaga yahay laakiin salaa arag ninkan
shaati asal buu shaqeynay inay markiiba soo fariistaan aan labada isku qabiil weeyo isku meel ba ka soo jeedaan horta waxaan wax la soo abaabulayna tahay ninkana dee nin ama waxa laga dambeeyo si jaamacadda loo xidhnaayo reer Koorada waxa weeye maartay waxbarashada loo xidhnaa jaamacadda loo xidhnaa waxa weeye camud loo xidhnaa ayaa horta waxaan hadii ay waxa weeye jiraan sidii waxa weeye wax la soo abaabulay oo qorsheeyo meesha loo geeyay inuu dadka ku laayo oo maartay lacag lagu soo siiyay oo gareys asrab loo soo geliyo horta anu aaminsan ma kana mana sayta hadda anaga ninkaas naga mid yahay waxa leedahay ninkaas anaga naga mid yahay hal dilo haddii asrab waxa weeye ay keeni anagu asrab baan u haysanaa haddii keeni weydana labaatan asrab waa u soo qabsanaa anaga oo u soo afduuran anagu asrab baan u haysanaa reer baan u haysanaa isaga shaad waxa weeye waxa soo adeegsaday anaga ma jeerteen oo kuma diri karo waa dhalay weeye waxaana waxa weeye si reer Koorada waxa weeye maartay jaamacadda loo xiri lahaayo aysan wax lagu baran oo meel walba laga dagaalamo maskaxdii waa laga dagaalamay anaga sawirro kuma diri karo weeye dadkayga wax ka barta Koorada cid ugu diri karta iyo cid iska kala horkay karta sawirro ma jirto waa dadkayga weeye waxaana waxa ka dambeeyay asal baa ka dambeeyay anagu asal baan u haysanaa ninkaas hadda anaga naga mid yahay nin asal ku shaqeeyo uu yahay oo anaga waxa weeye dibjira arkurista uu yahay oo waa nin dibjira u naqaanaa la soo adeegsaday ha soo dhiiban hadday rusheegayaan soo dhiibkaan taagta xitaa hadday jeesta xitaa dhaafaqaan u qaadan anaga direen waxaasoo kale waxa uu ama awl bixin nagu jirin xoga xabo erkaabo maahay anaga uga jira aslam taas oo kuwa naga dhintay way codka wax yar afka dheer telefoonka in yar wax yar marka waxaa sidaadeen aslam anaga waxa weeye aslam anaga horta xabad baba sida naga dhacay waxa saaran nima dhaxyaa lama garab ninka u shaqeynaya adeerkii hadduu yahay waa in la toogto weeye waxaana jaamacadda wax loola dagaalamaya waxa weeye jaamacadda wax lagala dagaalamaya dadkaas inay si horumar u gaareen si aqoon u yeesheen si meel kasta looga imanayaa sabarrada oo jaamacaddoodii waxa weeye Soomaaliya shaqada Soomaaliya dhan sidee loo dhiganaya ayaa waxa weeye horta ninkan waxa loo dilay ma garatay ninkan hadduu anaga yahay oo loo hubo oo warsi okay waa gartay haddii ninkaasi hadda waa la aasay maxkamaddana kolley waa la horkeeni doonaa ninkaasi hadduu wasangeli noqdo oo asramna u shaqeynayay nimanka ma jeerteen nima ilmaadeeraatiin ma magtaad tiinaysin mise tiirkaad geenaysin maya xitaa hadday ma jeerteen mag baan qaadanaa anaga badikaad direena anaga badii hadday keeni waayaan anaga lagu cadaato inuu ninka anaga noqdo waxa weeye hadday keeni waayaan asram oo anaga lagu atirsanayo 20 asram aan soo qabsanaa oo soo afkuranaa waana naga go'an tahay waana jawaabteeda waxa soo socdaan jawaabta bixinaa marka hadday keeni waayaan ninkaas حتى حتى متجتنا على السلام هلو وسنقلي aad aan uga xumaa ka go'ay wasangeligu aad u cariisay walaalayaal majartaanka iyagii baa la isku diro aad u cariisay sababtoo ah majartaanku waxay raadinayaan inama wasangeliya inkastoo ay wasangelina ay nima ilmaadeera yihiin inta badanna isku mid maaha laakiin majartaanku maanta haddii ilaahay isaaqii gadabursi kama dhig war taasaa ugu wanaagsan baa walaalayaal wallaahi been nima sheegay isaaq badan baa ku nool dhulka majartaanka gadabursi badanna way joogaan laakiin nimankan daaroodka way is yaqaanaan waa niman inta badan way isku jaakiraan laakiin dir iyo daaro iskuma dhawaadaan walaalayaal okay koolka xigaan qabanaya halo salaamu calaykum isug halo salaamu calaykum yersug oo telefoonka ota halo may maqlaysaa ما مقلس أولا ها سودو هذا سيف عمل كم مقلس سودو ها قبيل كاغو ولا نو فشل حق ولا هاي ساق سودو سيدو أركتا إن كل يبقى سومال لبا إن إذا كنت سومال لبا جيسة تلك باش يساق على ود بعد أنت بدلنا جامعة عمود وجامعة وطية في عن مركز لاجا أفريقيا دمانتيد أما مركز يوروبا كلا لاجا مركز يوروبا كمان أفريقيا وجامعة وطية في عن مثل هذا هاي باش يساق على ود بوين بوقبتها باش كده بورسي مر هدي نقالية كلا دجال ما يسو أو ماتا عالم كيبلو جدا ير لو حريو أو ما داير لو بدقية أدرك يصير تذكر لو قدري جامعة هي بورا ما تذكر مثلا نبض وحقوق برنيه مثل هذا هاي
ragga isaaqi cadaawad ba u qaban gada buursiga mas leedahay adoo isaaqa وني والله هذا السؤال ونيو waxa weeye horta niyo wax reesha saaqo nacay ku jira reer Boorama amba gidis ma jira ma garad waan gartay marka niyo arintu waxa weeye niyo calankan buluuga dadka reer Soomaaliland amba dadka reesha saaq baad leego calanka dhibaato badan buu soo maray ma garad waan gartay marka 39 markii Boorama lagu sameeyay Soomaaliland heshiiska looguma jirin in reer Boorama ay magaranaysa heshiiska jabiyaan oo calan buluuga qaataan ma garad إن عالك قاتم بلوجا هذا شيء كأني لو ما تشرين هذا رد استعمال لامبن ولا بستني ما قرأت واقرتي مركا أرد الدل كمان شكل عين الدواء قدر الله لكن ما قلنا ساعة على يرضى عنك لو حرنا أنا وحلا اليوم ونيو تمريت استعمال لامبن حكود لي ديني أبغى حكود ديني وتبلتين وحكا صدا تو كلام وحبكوا وجين ده وقت كثير بدك كلامنا ولا قد وأنا وحلا حاجة الصومالي السياسيين الصومالية أيها كتم بيا إن ده يرى رهيبور ما لقلده والله يرى عنك بلوغا قات اوكي midaan ku weydiinaya calanka buluuga hargeysa lagu ma qaato oo burco lagu ma qaato berber lagu ma qaato maxaa u geeyay Soomaaliya sanaagii gadabursiinay qaataan calanka buluuga markasta u qaataan soo ma aha xukunkiina ay diidan yihiin oo dadkaasi waxay doonayaan xukunno kale inay sameystaan ama maamulo kale wani wallahi ni horta reer Boorama seer la saan reer Boorama يورد رير بورم والله نيو إنا ما تدكن يوروب يوم ما كده ملاه يوروب لا يماده يو ده مثلا تدك هو دكي شوجا دتك ودن كي شوجا دتك هو دكي شوجا نيو إلا مع بيجوجا سمعنا دراني رير بورمان واد بورمان